هلو هلو، السلام عليكم. kusoo dhawaada youtube-ka cilmi fx oo anigu ahaa cilmi. Waxaan rabaa maanta inaan sameeyo trade breakdown. Intaan youtube waa ka maqnaa video maan soo dhigay, soo haddaanaan dib ugu soo laabtay alxamdulilah. Marka ugu horeysa ramadaan mubaarak. Maanta waxaan qabanay trade, laba trade aan maanta galnay. Labada trade aan galnay euro usd iyo waxay kala ahaayeen jpp usd. So euro usd hadda ka hormaraya, and then jpp dib aan ka gali doonaa. So intaana trade-ka aan forecast ku sameyn ka hor waxaan rabaa inaan idinla socodsiiyo inaan sameeyey telegram aan ugu talagalay had kadib inaan kusoo gudbiyo forecastiga subaxii saddexda lacagood oo kale ah euro usd, jpp usd iyo aud usd sidaad meeshan ka aragtaanba. So guys, trade-kan inta aanan galin ka hor ama aanan trade furan, ugu horeyn waxaan sameeyey daily forecastigayga aan dhigay. As you guys can see it, waxaan dhahay supply area la joogaa, Asian high la soo qaatay, London station markaa socday. So lugtaan soo baxday inaan ka trade gareeyo maanan doonayn. Waxaan rabay markii la taabto supply-gan kadib la isiiyo signs of selling opportunities or change of character inaan raadiyo fursad oo sell ah. Ugu dambeyn suuqa markii la gaaray New York station sidaad halkan ka aragtaanba, London station trade waan ka weynay. New York station markii la gaaray ayaa waxaan aragnay in trading opportunity weyn uu jiro. So waxaa dhacday ugu horeyn horta supply-gan aan dooranay. Waxaan is leeyahay supply-gan markii la midkeed kariyo kadib trade-ka ka gala ama entry ka furta kadib ha baxo. Balse waxaa dhacday in aan arkay suuqa inuu sameynayo, inuu qaadanayo inducement kadib uu hore u sii socdo. So orderkii intii ii saarna waa ka dejiyey. Orderkii intii ii saarna markii aan ka dejiyo waxaan sugay supply nadiif ah inuu suuqa soo galo. Supply-gaas oo wato inducement ama liquidity saa u taqaanaanba, imbalance wato, wax walba trade laga rabo leh. So waxaan arkay suuq inuu kadib sameeyey inducementiga markii la qaatay kadib break of structure, which is a big sign that the market wants to go down. So break of structure markii la sameeyey, and then waxaa la abuuray inducement which is this high, guys, and this supply area which has an imbalance. It's a minor imbalance, boqolkiiba 9 waa la soo buuxiyey, but still it's an imbalance. So imbalance-ga la soo baxan dhahay, imbalance-ga la soo buuxiyo, liquidity-ga hal qaad kadib trade furnayna kadib, and then limit-keena waxaan saaranay kor. Finally trade-ka waa noo taabtay, and then the rest was history. But waxaan refinement ku sameeyey take profit-kii markuu ugu horey wuxuu ahaa halkan oo markii sidaad aragtaan markii 15 minute la aado demand-kan uu ahaa halkan. Trade markaan inta ka furanay demand-kan aan rabay inaan uga baxo, aan islahaa demand-kan hal buu sababi karaa. But kadib analyse-kiga dib ugu laabtay, waxaan ku analyse gareeyay session timing-ka. So waxaan arkay laba session lows-kooda oo liquidity labada haddaad ogtihiin haddii kale session walba lowgiisa iyo highgiisa waxaa yaalo liquidity. So labada session London-ka iyo New York, London iyo Asian, labadoo liquidity-gooda way denied. So markii dambe adjustment ku sameeyey, take profit-keyga waxaan ka dhigtay London low, and the rest is history. Waxaan ka qabanay 5.2%. It was a beautiful trade aan maanta qaadanay. Trade-yada iyo trade kaleeto aad u qurux badan waa soo dhigi doonaa insha Allah. Stop loss-keena wuxuu ahaa 3.5 pip, take profit-keena wuxuu ahaa 18 pip. maxamo waa lagu qaadan karaa markii la yimaado. Still waxaan target gareyn karnaa xataa hadda trade-ka marka inta ka galnay. Anaga iska jeclay in aan out inaan suuqa ku noqdo, ma ahan trade waxaan ka qaban karnaa ilaa 15%. But enough is enough. 5% ma sahlanayd xataa. So guys, intaasaan idin sheegi rabay, intaasaan idin rabay inaan kugu sameeyo trade breakdown. Waa anigu ahaa cilmi. Sidoo kale waxaan rabaa inaan idinla socodsiiyo inaad booqan kartaan telegram-keyga. Waxaan kusoo gudbiyaa subax walba free focus aad wax badan aad ka heli kartaan oo faa'iido ah.
marka waa kaasaa linkiga telegramka waxaa idin soo dhigi doonaa instagramkeyga profilkiisa youtube sidoo kale soo dhigi doonaa videogan hoostiisa soo dhigi doonaa insha allah marka guys aan isla socono youtube-ka subscribe hala siiyo insha allah ramadaan mubaarak